Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay rabshadihii maalimihii ugu dambeeyay ka socday dalka Itoobiya ay soo maleegeen. Waxa uu ku sheegay cadowga dalka Itoobiya in laamaha ammaanka federaalka iyo deegaanka Oromada ay soo afjareen. Ra'iisul Wasaaraha oo shir jaraa'id oo uu kaga hadlayo xaaladda dalka Itoobiya uu ku sugan yahay ayaa sheegay dowladdu inay qabatay gacan ku dhiglayaashii dilay fanaankii caanka ah Hachalu Hundeezi, balse ay harsan yihiin kooxihii dilkaasi soo maleegay. Dowladduna ay ka qaadi doonto tallaabo adag. Shakhsiyaadkii dilka looga shakisan yahay waa la hayaa, waxaana dilkaasi ku leh shakhsiyaad qaab dhismeedka dowladda ku jira, ayuu yiri. Aragtiyada nacaybka ah xambaarsan ee ku salaysan qowmiyadda ama siyaasadda dalka Itoobiya wixii hadda ka dambeeya boos uguma banaana. Xoogagga doonaya inay dalka Itoobiya dhiig ku daadiyaana waxa uu sheegay in eedeyadaasi marnaba aanay u rumoobin. Dr. Abiy Ahmed ayaa telefishinka qaranka ee dalka Itoobiya ka soo muuqday isagoo ku labisan labiska ciidamada ilaalada qaranka, ayaa mahad ballaaran u jeediyay laamaha ammaanka ee federaalka iyo kuwa deegaanka Oromada sida degdega ah ee rabshadahaasi intaanay baahin u afjareen, khasaarahana u yareeyeen. Hoggaanka diimaha iyo kuwa dhaqanka oo iyagana xasilinta dalka kaalin mug leh ka qaatay. Hay'adda sharciga oo iyaguna har iyo habeenba ku howlana shakhsiyaadkii sharciga ku xadgudbay ee dhacdadaasi ku lugta lahaa. Xoogagga magaca qabiil ama siyaasad ku gabanaya ee dagaalada hoose ku wada dalka Itoobiya waxaan ku qasbanahay inaan tusno sharciga. Xoogagga doonaya inay Facebook ka riyoodana waxaan sheegnaa inaanay marnaba riyadoodaasi rumoobeen. Wixii hadda ka dambeeya waa in la ogaadaa dalka Itoobiya aragtiyada kala duwan ee siyaasadda in lagu meel marin karo oo keli ah si nabadgelyo iyo dimuqraadiyad ah. Dambiilayaashana si degdeg ah ayaa sharciga u horkeenaa si mudankooda loo mariyo, ayuu yiri Dr. Abiy Ahmed. Sida dowladihii hore dadka aan xirno ama aan soo qabanno cidiyaha kama siibano, guri mugdi ahna kuma xirano si aan wax u sheegsino, ma garaacino si sharci ah oo sharciga waafaqsan oo keli ah ayaan ula xisaabtamaynaa, mudankoodana u marinaynaa, ayuu yiri. 3 Juun oo isku xigta 2008 2019 ayaa la damcay in dalka Itoobiya dhiig lagu daadiyo. tii koobaad waxaa la isku dayay in la yidho, talabaadna waxaa la dilay saraakiil iyo madax dalka ka mid ah. tan saddexaad ee sanadkana waa tan fanaanka lagu dilay ay ka dhasheen rabshadaha ay dadka badan ku dhinteen, ayuu yiri Dr. Abiy Ahmed. hadalka warbaahinta dalka Itoobiya uu ka jeediyay Dr. Abiy Ahmed ayaa u muuqday mid kulul oo kuwii hore looga bartay aan ahayn. afhayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Bilanu Ziyum oo shir jaraa'id qabtay waxay sheegtay in adeega internetka toddobaadka soo socda la sii deyn doono maadaama ay xaaladda dalka Itoobiya ka soo reynayso. xeerlaaliyaha guud ee dalka Itoobiya waxa uu sheegay in 3 telefishin oo gaar loo leeyahay xafiisyada ay Addis Ababa ku leeyihiin la xiray. duqa magaalada Addis Ababa Injineer Takale Uma wuxuu isna sheegay in wixii hadda ka dambeeya aan loo dulqaadan doonin dadka caadaystay tallaabo kasta oo xasiloonida iyo nabadgelyada dalka wax u dhimaysa. hay'adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee CPH waxay dowladda Itoobiya ugu baaqday in adeegga internetka fasaxdo, wariyaasha ay xabsiga u taxaabeenna ay sii daayaan. labadii maalmood ee ugu dambeeyay inkastoo ay xaaladda dalka Itoobiya deganeyd, haddana ciidamo hubeysan oo aad u tiro badan ayaa laga howlgeliyay magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Oromada. magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Oromada waxaa lagu soo rogay bando iyadoo shacabka lagu wargeliyay inay guryahooda aanay ka soo bixin. magaalada Addis Ababa waxay wararku sheegayaan in rabshadihii maalimihii u dambeeyay ka dhacay magaaladaasi laga dareemayo oo ay wadooyinka waaweyn ee magaalada ay haawanayaan socodka dadka iyo gaadiidka uu yar yahay. dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay xirtay 35 xubnood rabshadaha waddankaasi ka socday laga xiriiriyay oo ay ka mid yihiin Jawhar Maxamed iyo Baqale Garba. qoyska siyaasiyiinta xiran oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in Jawhar Maxamed uu diiday cuntada ay dowladdu siiso, halka ay dowladduna diiday in ay Jawhar cunto dibadda looga keeno. tirada rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay rabshadahaasi dalka Itoobiya waxaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 80 qof, walow ay jirin cid xaqiijin karta tirada rasmiga ah ee dhimashada ama dhaawaca maadaama internetka iyo isgaarsiinta dalkaas ay go'an tahay.